بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يابا إنك ودن كان وابا يابا إنك دad كان الصومالي إنك أفر تقف إنه جرت أو معارض كه أو دبر لي في كمسك قبوين مركي ودن كإنه صعدي الحد ضي صدّن سنة أيان لب كجرنا صدّن سنة أيان قحر كجرنا صدّن سنة أيان قبائل قبيل اسكو عيرسنين ما أنت ما مركان دولة نبض iyo nolol aan helnay laba nin oo dadka raba inay u shaqeeyaan oo waddanka horumar gaarsiiyaan aan helnay laba nin oo raba xornimadeenii aan lahaan jirnay inay dib noogu soo noqoto aan helnay ayaa waxaa la damcay in lugaha nalaga gooyo ma fahanteen warkayga kenya waxay rabtay maadaama ay waddan nfd la yidhaahdo ay haysato waxay rabtay gadana inay ku darsato jubbaland ay ku darsato dadka dowladaha kale iyo adduunyada kalena isaga dhigto inay soomaaliya ay maaragtay argagixisada kala shaqaynayso oo ay maaragtay ay la tahay dowlad darisla ah laakiin ma ahayn nala ma ahayn waxaa la yidhi warku intuu uurka ku jiro afka intuu uurka ku jiro ammaanya hadduu hadalku uurka ka soo baxo oo bannaanka yimaado waa khalaas waa siduu u soo baxay marka adduun weynahana waxay isaga dhigaysa iyo soomaaliya inay nala jirto daris wanaag ay nala qabto intaasoo jeer baa madaxweynuhu ka hadlay oo dowlad baarlamaanku ka hadlay oo madaxweynuhu uu yidhi annagu ma rabno inaan qasamayno annagu ma rabno inaan dhibaato samayno labada shicib waa daris labada shicib waa walaalo dhib iyo qaxarka looma baahna in la sameeyo waxaan dowladda kenya ka codsanaynaa faragelinta ay nagu haysa inay naga jirsi intaasoo jeer baa madaxweynuhu yidhi oo dowladdu tiri may fahanteen soomaalidana waxay ku maamaadaa doqonta agteeda usha ku dhuf hadday garan weydana korkeeda la dhac soomani garan soomaaliya waxaa idiin sheegayaa daris wanaagaas la sheegayo kenya shaqo kuma lahay bal fiir etoobiya nama fargashato jabuuti nama fargashato darisnimadaasay og yihiin ma fahanteen darisnimadaasay og yihiin shabaabkaasay gees nagala jiraan oo shabaabkaas nagula yani gees nooga taagan yihiinoo oo maxaan ku rahdaa dhinacaas inagu aan ka dagaalamayno dhinacooda kale ka dagaalamaan ma fahante oo argagixisadii rabaa inay waddanka nagala dhameeyaan innaga laakiin fargelin kale oo waddanka kula jiraan ma jirto hadday etoobiya tahay hadday tahay jabuuti maxaa soo geliya kenya markaa awal bay dhul naga haysatay ma waxay istiri dhulka kalena ku darso soomaali mataqaana dee libaaxa afrikana la dhihi jira way ogtaha way ka warhaysaa laakiin waxay istiri hadda waa kala daadsan yihiin waxay aragtay dad badan oo mucaarada dad badan oo caada qaatayaala uu ka mid yahay cabdishakuur oo shalayna badda gatay maantana yuu ictiraafay yuu garab siiyey nin kale janan hadda isaga u taala anu dowladda haddaan ahay waxaasoo dhan waa ciribtiri lahaa waa qabqaban lahaa waana la qaban doonaa waana la qaban doonaa soomaaliya sababtay taa cabdishakuur awalna shalay isagaa u saxiixay kenya nin kale jananna wuu ku gabanayahay dowladda kenya gooni u garab taagan yahay dowladda kenya gabaad ka dhiganaysay oo gacanta saas wejiga u saaraysay oo yani iskana dhigaysa inay nala jirto nagana jirtay waana nala jirta waana naga jirta may fahantaa warkayga waxay islahayd gado ilaan caadaqatayaal baan leenahay axmed madoobe ilaa iyadaa xukuntee ilaa iyadaa hubka iyo lacagta siisee waxay kula heshiisay inuu asaguna madax beenbeenoo maqaarsaara uu ahaado may fahantay oo la yidhaahdo waa gado maxaan ku raha jubbaland soomaaliyay ka mid tahayoo jubbaland waxaa madaxweyne u ahaa axmed madoobe waa been maqaarsaar buu ahaa ayagaa waxay yidhaahdeen noo hay tartiib baan rabnaa inaan u goosane markay goosanayaan maxay u maleeyeen soomaalida markay goosanayaan soomaali baa la waayay wiilkii intuu taagan yahayna tallaabo annagu aan leena qaadan maayaan kuwii dhulka hore ay haysteen baaban ka soo ceshanaynaa oo nfd la dhahayay may fahanteen markaasaa cabdishakuurna oo iyagii raacay oo iyagii daba orday oo yidhi sax waa ninka gardaraa dowladdu ay ugu duushay ninka leh janan waxay dowladdu waddo waa qalad inay gada u duusho waa qalad waa been warkaa u leeyahay waxba kama jiraan ma fahanteen janan buu iska dhigayaa inuu la jiro lama jire dowladda kenyuu la jiraa ee wuu isqarinaya shaati buu qabaa ilaa hadalka midna dadka qofku markuu dhahay wuu caddeeyaa midna shaar buu geliyaa isagu shaatigii buu geliyey
laakiin wuxuu qaadi karaaba iska yar asagee wixii la midaba waa in madaxa laga gawiyo sidii mas la dilay oo kale oo la qabqabto daba dhilifoo dhan looma baahna may fahantaa warkayga markii dagaalkii dhacayna nin gardarin ma guulaysta awal soomaalidu tiri dhulka iyagii bay dabceen ayagaaba dagaalka soo qaaday ayagaaba hobiyaal ku garaacay bulaxaawo oo kuwaa dhulal badan gubay guryo badan gubay dadkii qaxeen dadkii khasaaro badan u geysteen laakiin maxaa ku dhacay hadde maxaa ku dhacay kabtaydii maaragta karinkaygi maaragta ku dhacday ma soomaali bay ku dhacaan war hoyna ma yaqaanaan wallaahi waanana yaqaana way isyeelyeelayaan wallaahi libaaxa afrika inaan ahayn way yaqaanaan wallaahi inaan nalaga aan hilib nalaga cuni karin hal cad oo anagu aan leena inaan la qaadan karin yaa wax u sheega kenya dharbaaxadii ugu horreysay way aragtay laakiin midda kaloo ku soo socota hadday dhegu kenya ayna ka bixin soomaalina lama dhaho annaga intayna barteen baaba iska yar janana waa lasoo qabanaya axmed madoobana waa lasoo qabanaya waa kan maxaan ku raha inta kismaayo ka tegey oo isku aamini waayey dhoobley dabada gashaday kismaayo waa isku aamini awal kismaayo ku bootan jiray wuxuu arkay inuuna ku baxsanayn dhoobley iyo xaggaas kenya uu durkay oo wuxuu isleeyahay haddii weerar lasoo qaado aad aragta carada in la qabsanayo halkaa aad ka sii geshi kenya laakiin gacan baa lagu dhigaya asagana shalayna si cidile fare cidile buu ku fakaday ninka la yidhahda janan wuxuu watoo dhan baabuurtoo dhan waa kuwa laga qabsaday waa kuwa laga laayay raggoo ciidamadu watay ma fahanteen waa kii qaar laga gubay kenya sidoo kale gaariga ay biruhu ugu xiran yihiin oo baabuurtan maxaan ku rahdaa cabdibilaha ah macalo wixii saarna waa tan la gubay baasuukasaa loogu dhuftay may fahanteen warkayga nin gardarana ma guulaystaa la yidhi soomaalidu tiri kenya dhagaha iyada qeeq ka bixi maxaan ku rahdaa gado iyo jubbaland oo dhanna waa soomaaliya annaga dhulka inafdhiyo ay naga haysato ayaan u tallaabaynaa oon ka soo qabsanaynaa haddaanaan dhiman ayadu bal miday qaada iska dhaafe midka ay haysato ayaan ka soo qabsanaynaa oo inta ka soo qabsana inafdhiyo intaasoo sane ay haysatay ma fahanteen ayaa inta loo tillaaba la qabsanaya waa kaas ciidamadeenna haramcad yah ciidamadeenna haramcad iyo ciidamadeena kale oo milatariga waa kuwaa soo qabtay buulaxa mandheero galay wax yar gudaheeda u galay haddii maxaan ku rahdayey janan ayna kenya ka soo saarin oo ayna soo dhiibinna gudaha isagoo ku jiraa loo tallaabaya mandheero waa waddankayaga annaga iskale ma laha kenya gudaha la gelaya mandheero oo dhanna waa la qabsanaya jananna halkaasaa lagu qabanaya iyo wixii la socdoo dhan ballanna waaye way joogsan weyda kenya cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaa baa la yidhi way joogsan weydaye dhaga haddaan wax badan qeeq ka bixin kenya annaga soomaali mabalnaa la dhahaba intayna barataaba yar ma fahanteen marka waxa waaye soomaaliyay hala israaco tagnay waa tagnay dowlad ilaahay wuxuu noo keenay waddankii noo qabatay oo waddanka horumarkiisa inoo gaarsiisay ee rabta inay gaarsiiso inta kaloo dhiman oo rabta xuduudada inay aaway waa ogeydeen kenya xuduudka gado waxay ku samayn jirta waad ogeyd maalin kasta shirkadaha in la gubi jiray oo maalin kasta dadka ka shaqaynaya la leen jiray oo ciidamadooda kasii maaganta isaga soo galaan ay dadka siday doonaan yeeli jireen waxay ogaayeen waxay isdhihi jireen waa dowladaan weli tabar lahaynoo qaxdayoo aan waxba haysanoo sidii la doona la yeeli karo laakiin been bay iska dhaadhiciyeen iyo booto inta dabadhilifka ah oo lacagta ku shaqaysa oo waddanka raba inay ay gataanna horeyna u gatay inta hartayna raba inay gataanna ayagana waa la qabqabanayaa waa la soo qabqabanayaa maxaan ku rahdayey oo mid ka fakanaya ma jiro maxaan ku rahaa kenya iyo wixii la halmaalo iyo wixii tuugoo dhanna wax ay tari karaan ma jiraan ma garata waa laga caarsanaya inta annaga caada qaatayaasha soomaalidaana oo kenya iyo imaaraadka u shaqeeyana waxaa waaye waa lasoo qabqaban doonaa waana la qabqabanaya labada ninoo hadda ka baxay xisbiyadii mucaaradka oo nimankii ugu waaweynaaya oo ka baxay xisbigii sheekh shariif ee xisbigii xasan sheekh waa nimankii ay ku tashanayeen weligood ismay lahayn waa idinka tegayaan hataa kumay riyoon markay arkeen waddanku inuu horumar samaynayo oo arkeen labadaa nin oo ilaahay noo soo diray waddanka inay wadaan oo cadowgii la qabqabanayo oo xuduudadii la tegey oo wixii naga maqan lasoo qabanayo ayay arkeen
oo labadaa ninna ay arkeen oo xisbiyada beenbeentaa samaystay yaa oo wax matarayaasha ay arkeen bay ka soo baxeen oo yidhahdeen awalba qalad baan ugu jirnay raalligelin bixiyeen labadoodiiba may fahanteen oo yidhaha awalba qalad baan u samaynay inaan halkaa galno qaladana hanala dhacayna haddee hanalaga cafiyo waddankayagaana la shaqaysan dowladdayadaana raacayna hadday og yihiin inay wax tarayaan miyay kasoo bixi lahayen waa may waa labadii nin oo ay iyagu haddee markii ay ka baxeen oo maxaan ku rahda jegooyinkii ay hayeen ay iska casileen naxdintay naxeen lagama sheekayn karaa lagu leeyahy umay malayna labadaa nin inay ka tegayaan laba nin oo muhiim u ah bay ahaayeen oyna ka samri karin muhiim bay u ahaayeen labadaa nin may fahanteen waa ogeydeen maaldood intii dowladda ay hayeen xasan sheekh intuu dowladda hayay yaa reerka uu sheeganayo isagu yahay muxuu u qabta madulood muxuu u qabta reerka uu isagu ka dhashay oo madulood la yidhaahdo markuu 4 sano haystay muxuu u qabtay muxuu u sameeyey muxuu reerka ugu maqaar saaranaya muxuu ugu maxaafsanaya sheekh shariif sidoo kale muxuu u qabtay 4 sano waddanka hayay muxuu u sameeyey dib iyaga inta isu laayay dib isu baabi'iyey waxay u qabtaan iska dhaaf cali mahadina naaftadiisii wixiisu gadan jiray iyo waxaasuu daba socon jiray goormuu madulood wax u qabtay goormuu wax u sameeyey war qabiil in lagu maqar saarto lugaha la marsado ma aha haddaad rabtiin haddaad toos u aadid toos u aad qabiil ha ku gaban qabiil ha ku gabanin ma fahanteen qabiil ha ku gabanin ee toos u aad qofkaad u baahan tahay qabiil shalay markaad madaxweynahayd waxba umaad qaban raggii baad ka laysay dadkii baad ka laysay shalay madulood ma jirin miya ma hadduu dhash shalay ma ahayn qabiilooyinka madulood ee soomaalida ka mida ma ahayn ma hadduu soo kooyay oo yimid waa may waxaasoo dhan waa kalaam waxaasoo dhan ma fahanteen runtana way arki doonaan wayna arkeen inta tuugta ah inta wax matarayaasha ah inta waddanka gadanaysa inta aan waddanka horumar u ogolayn inta cadowga la shaqaynaysoo dhan kolle waa in la iska qabqabtaa dowladdu horta cagaha dhigto ayaga waa loo soo jeensanayaa dowladdu markay xuduudada qabato oo inta maqan oo dhan ay qabato oo inta maqan oo dhan ay soo celiso ilaa nfd lasoo qabto markaasa ayaga loo soo noqonaya wax matarayaashoo dhan oo cadaqaatayaasha oo dhuuntaas le ku shaqeeya oo aan caqli lahayn oo aan dad u naxayn oo aan dal u naxayn oo uun shilinka la siiya keliya ku shaqeeya oo aan dadka dan ka lahayn oo aan dalka dan ka lahayn bas shilinkaa keliya la siiya keliya raba bal hadda axmed madoobe muxuu ku dhimanaya hadda waxaa la yidhi shabaab bu awal ba ahaan jiray moogta haddana shabaab buu rabaa bale inuu la heshiiyo si shabaabku ay garb usoo siiyaan ma fahanta shabaab kasta hadduu la heshiiyana waa laga saaraya tii laga saaro waa haddaan la dhiman ma fahanteen waa tii laga saaro oo waddanka laga qabto markaa asagu kismaayo kenya aadi lahaayaa cirka meel ka samaysan lahaayaa dowlad kale u geli lahaayaa isaga laftigiisa gacanta in lagu dhigo maxkamad lasoo taagaa la rabaa janana waa saasoo kale dabadhilif oo dhan waa la qabanaya kenya iyo imaaraadka ma waddankeenay leeyihiin mise annagaa iskale ani waxaan la yaabanahay kenya iyo imaaraadka qolada la dhaho iyo kenya ma waddanka iyagay leeyihin annagaa iska lehe haddana waxaa waaye ilaa mandheerana waddanka soomaaliya ka mid ahay waddanka soomaaliya oo kenya ay qabsatay ka mid ahay waa la qabanaya iyadana kaasna guduhu ku jira gudaha loogu tegaya ciidamadayada yaa madaalayaasha ah waxaa waaye guulaystaa idin leeyahay haramcadka iyo maxaan ku rahda ciidamada kale guulaystaa idin leeyahay garabkiina ilaahay kama baxaa idin leeyahay guulaysta waa idinla jirnaa waxaa la yidhi shicibkii buula xaawo caanaha iyo biyahay ka daba wadeen baa lihi caanaha iyo biyahay ka daba wadeen baa lihi shicibkao dhanna saasay u kici doonaan meel alla meeshii ciidamadu joogaana shicibka jooga garab ha siiyeen ciidamada ha garab wadeen markay dagaalamayaan caanaha iyo biyaha ka daba wadeen kii dhaawaca meesha iyagu ha ka qaadeen ha ka soo keeneen isbitaallada ha keeneen guul baan idin lehay guul waddanku horey buu u socday wuuna socon doonaa 2 ninoo ilaahay noo soo diray baa ilaahay noo keenay farmaajo iyo khayre allaha guuleeyo innaga laakiin maxaa nala rabaa shicibkeena soomaaliya inaan garab siino qof kaliya wax ma tarto far kaliya fool ma dhaqdaa la yidhi may fahanteen warkayga soomaaliya waa inaan garabka siinaa dowladdeenna oo inta cadowa iska qabanaa oo inta waddankeena rabta inay qaadato aan iska qabanaa waddankeena loo soo jeensada soomaaliya may fahanteen warkayga kenya kow ka ah waddankeena inta rabta
kenya kow ka ah kenyana shalay dharbaaxa run ay aragtay midda u dhiman baana ka daran haramcadka yaa haramcadka ciidamada la dhaho iyo kuwa kale waa kuwan dharbaaxada ku dhuftay waynu ku dhufan doonaan may fahanteen marka soomaaliya waxaan idiin sheegayaa aan isla jirno ciidamada aan la jirno meel kasta oo ay ka dagaalamayaan ciidamadu ay soomaalidu joogto shicibkeedu ha garab istaageen biyaha iyo caanaha lagu garab wado aan iska celina cadowga ilaa iyo nfd markaan geda qabanana waxaan ka bilaabaynaa kow mandheeraan ka bilaabayna markaasaan sii soconayna kenya waxaan tusaynaa awoodoodu intay la eg tahay annaga soomaali baana la yidhaahdaa libaaxa afrikaana la yidhaahdaa marka waa idin salaamaya insha allah gedana mar dhow inta hartay waa la qabanaya ilaa kismaayaa la tegaya ilaa dhoobley baa la tegaya axmed madoobe wuxuu kismaayo uga cararay soomaaliya uu dhoobley u tegey xaalku inuu xumaaday buu arkay mar alla markii galmudug uu arkay in la qabtay sunna wa jamaaco buu wuxuu arkay xaalku meel xun awal horoo dhan dhayel buu ku jiray riyuu ku jiray moogta markuu arkay xaggaa ina la qabtay oo nimankii ugu firfircoonaa dowladdu qabatay buu yiri waxba ma yaalaan marka beenbeentu waa dhammaatuu yiri ee bal sii dhowow kismaayo ileen haddii lagugu yimaado khatarteeda leeda bal sii dhowowo kenya meeshay ka dhowda uga dhowow saasuu marka balido bahashi uu aaday maxaan ku dhaha dhoobley uu dabada u gashado wuxuu isleeyahay xaalku markuu xumaado aad halkaa kenya ka geshay ku carartay naf baa halkaa geysay laakiin waa la qaban axmed madoobe oo ninka la yidhaahdo waa la qaban ee janan waa la qaban mandheeraa loogu tegi hadeerna shalayna waa tii inta ugu soo horeysa mandheero gudaheeda ciidamadu galeen ma fahanteen haddana way geli doonaan oo way soo qabanayaan isaga waxaale wuxuu watana waa tii barna la gubay barna la qabqabtay la dilay marka waa idin salaamaya soomaaliya saasaan isku ognahay ciidanka aan la jirno ciidanka aan garab siino dowladeenna aan garab siino waxaa maarata dabadhilifka oo dhan cayayaanka aan iska qabqabano cayayaanka dowladdu way qabanaysaa horta hadda iyaga waa sii naasnuujinaysaa ha iska joogeen aan kasoo jeensana cadowga kale markaan kasoo jeensano ayaa iyaga waxaa la falayaa fara cidila lagu qabanaya sida ninka la yidhaha cabdishakuur oo kale iska nacnacle oo wax matara ah oo maanta dowladda haddii jago laga siiyo kenya iyo wixii lamida waddanka ka gadanay inta hartay waa loo soo jeensanaya waa lasii naasnuujinayaa kabacdina maxkamadaa lasoo taagaya iska daaya adinku haddaan dhegaha laga babin maba nihinba soomaali annaga haddaan dhegaha laga babin iska daa horta cadowga aan iska celino ha joogen iyo halkaasu naac ku hayaa kanyuu la jiraa markaas wuxuu iska dhigaya xataa lama jiri karo inuu hadlo maaha hadduu hadlana waxay ahayd inuu dowladda garab istaago marka inuu yidhaahdo gardaray dowladdu ciidamada halkaa u geyso dagaalka uga gashay yaa warkaa ku jira warya caadaqaataa tahay caadaqaato adoo kaleta waa la yaqaana waana lagu qaban doonaa maxkamad baana lagu soo taagay waa laguu soo jeensanaya adiga wixii la halmaala waa loo soo socdaa waa idin salaam soomaaliya asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu.